Chief Caaqil Sidiiq Malow oo ah caaqilka beesha reer Muude ayaa safar ku tagay deegaanka Dacwaley oo uu maalmahan ka socday dagaal. Waxaanu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo xaaladii uu kala kulmay deegaanka Dacwaley. Waxaanu sidoo kale baaq u diray dhammaan ummadda reer Somaliland iyo xukuumaddaba. Waxaanu hadalkiisa sii raaciyey inuu cambaaraynayo weerarkii gaadmada ahaa ee lagu qaaday beesha Arab. Waxaanu yidhi hiil iyo hooba waanu la garab taagannahay walaalahayaga beesha Arab, waana kan isagoo ka warbixinaya siday wax u dhaceen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Allahumma salli calaa Muhammad. Waxa aan maanta ku suganahay dowladii Dacwaley oo shalay toole aan ka soo baxay magaalada Hargeysa anigoo ah Chief Caaqil reer Muude. Waxaa halkan i keenay dadka dhiig iyo dheecaan aan wadaagno ee ehelkayga ah ee Arab, dhammaan ummadda Somaliland walaaladood Arab iyo hoolkiis jiil bay ka daba istaagaan. Waayo tanoo kale siduu kala hadhayay maaha. Arabna waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto, intii dhaawacana Ilaahay ha u bako insha Allah biidillah Allah caafiyo. Waxaan kaloo u sheegayaa dadkii maanta raacsan ee dagaalka kala qayb galay haddii Sacdiisi haddii Ayuuba hambalyaan leeyahay waqtiga iskaga baahnaa. Dadka Arabna waxaan u sheegayaa tani mid lagu deynayo maaha. Waxaan kaloo u sheegayaa ummadda reer ninkii aan dagaalkaa geli karin waxaan ugu baaqayaa walaaladiisa dhakhtarka jiifan ee dhaawaca inuu dhiig u shubo. Ka kale dagaalka gelayana waxaan ku leeyahay diyaari naftaada oo ay buuxad limanaysa magac ka dhimo naftaada oo walaalada barbar istaag. Anaguna waxaan ballan qaadaynaa dadkaanu dhiig iyo dheecaanka isku nahay inaanu habeen iyo maalinba aanu barbar taaganay, naf iyo maal aanu horayno, hoo iyo hiilaan la barbar taagannahay. taasaan ayaan ugu baaqayaa insha Allah biidnillah. guushuna inagayna raaci doonta insha Allah biidnillah. dhammaan jumhuuriyadda Somaliland na aad bay u mahadsan yihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.